waxaa laga yaabaa in aad maalin dhaweyta maqlaysay in xayawaano 10,000 oo sano ka hor caalamka ugu dambeysay in dib loo soo celiyay iyadoo la isticmaalayo tiknoolajiyad aad u casriya haddaba sidee macquul ku tahay in xayawaanadaasi ay dib ugu socdaan dhulka si aan iskula fahanno mawduuca fiidiyoga dhammayso si aan sheekada bilowgeeda uga soo bilowno runtii waxaa jira adduunka xayawaano badan oo soo maray oo laakiin ka bini'aadan ahaan aanu soo gaadhin aan ku ogaanay in ay jiraan markii aan helnay lafahooga xayawaanadaasoo dhanna waxa ay ka saman yihiin in ay dhammaantood dabar go'een iyaga oo jiraan sababo badan sababahaas oo ka mid ah in ay lagu sameeyo ugaadhsi xaddhaaf ah isbeddelka cimilada iyo masuubooyinka dabiiciga ah sida ta ugu caansan ee ah sheekada daynasoorada uu dabargooyay neysag weyn oo ka soo dhacay xagga sare haddaba haddaan ku soo laabana sheekadeenna xayawaankan 10 sanno ka hor dabargo'e ee la soo celiyey ayaa waxaa magaciisa loo yaqaanaa direwolf waa nooc ka mid ah yeeyada waxayna ku noolaayeen 11,000 oo sanno ka hor ameerika iyo sidoo kale ameerikada hoose runtii markii la helay lafihiisa waxaa la ogaaday in ay yeeyada caadiga ah ee imika jira ay wax badan ku kala duwan yihiin marka ay noqoto dhanka DNA-ga ama sidoo kale lafahooga xayawaanadan ayaa wax loo asteegaa in ay noolaayeen xilligii Ice Age markii uu ahaa adduunku wada baraf xayawaanadan ayaa runtii waxa ay ku noolaayeen xayawaanadii xilligaa noolaa kadib markii laga baxay casrigii ama xilligii Ice Age-ka ayaa waxaa dabargo'ay xayawaano badan oo ay ku tiirsanaayeen in ay ku noolaadaan taasna waxa ay sababtay in ay runtii iyaguna ay dabargo'aan shirkad weyn oo ku taala waddanka Mareykanka oo magaceeda loo yaqaano Class of Biosciences ayaa runtii waxay isku dayayeen in ay soo celiyaan xayawaano mar hore dabargo'ay tani waxay noqotay tii ugu horeysay ee lagu guulaystay in ay soo celiyaan haddaba qaabka ay u soo celiyaan ayaa ah iyagoo isticmaalaya geneticska ayaa waxa ay sameeyeen xayawaanka waxaa jirayay u soo dhow noociisa oo loo yaqaano grey wolf kaasoo runtii technically ay yihiin imnaadeer waxaa la soo qaaday laba lafood oo hore oo ka soo haray direwolfka ee la helay ee lagu ogaaday inuu xayawaankan jiro kadib waxaa la sameeyey in DNA-giisa la barbardhigo xayawaanadan ay isku dhow yihiin ee aan iminka ka soo sheekeynaynay sida grey wolfka oo kale kadib waxaa laga bedelay 14 meelood oo ay ku kala duwan yihiin waxaa lagu sameeyey gene editing waxaana laga bedelay 14 meelood oo muhiim ah oo ay ku kala duwan yihiin xayawaanada grey wolfkaas DNA-gii cusbaa waxaa lagu shubay ugxaan si loo barcamiyo natiijaduna waxa ay noqotay in ay dhashaan yeeyo yaryar oo jir waaweyn leh oo muruqya leh oo ka duwan yeeyada imika jira oo codkooguna ka duwan yahay yeeyada caadiga ah haddaba dad fiidiyogan ka faa'iidaystay nagu soo biir sidoo kale soo booqan channelkayga oo walaalkiin injineer axmed dey kamaando sidoo kale isaga laftarkiisa uu ku maqnaa sida yeeyadaas oo kale laakiin imika soo laabtay haddaba si aan u sii wadno kontaktigan ama barnaamijyada noocan oo